haddii qofku uu eego kitaabka qur-aanka oo uu indhaha ka akhriyo laakiin aanu dibnihiisa dhaqdhaqaajin ajarkii tilaawada iyo akhrinta qur-aanka ma helaya? qur-aanka in la akhriyo iyo musxafka in la eegaa waa kala laba masalay noqon karaan. musxafka haddii dee daawasho un qofku uu isaga eegayo taasi cibaado noqon mayso, laakiin hadduu u eegayo litadabbur si uu qur-aanka ugu fiirsado macnihiisa oo u dhuuxo, eegmada noocaas iyadu waa cibaado. ilaahay baa subxaana wa tacaala yihi kitaabun anzalnaahu ilayka mubaarakun liyadabbaruu aayaati waliyatadakara ulu lalbaab. qur-aankani waa kitaab nebi maxamed oo aan kugu soo dejinnay, waa barakaysan yahay, waxna waa barakaynayaa. maxaa loo soo dejiyey? si ay dadku aayadaha kitaabka ku yaalla macnahooda ugu fiirsadaan oo iimaan iyo khushuuc iyo camal ay uga kororhsadaan. dadka caqliga lihina si ay ugu waantoobaan. cabdullaahi bnu mascuudna wuxuu odhan jiray radia allahu canhu, sida طabaraani uu wariyey biisnaadin xasan alxaafid ibnu xajar, adiimu nadara fi lmusxaf, eegistaad eegeysaan musxaf ka joogteeya, maaha eegis daawashaa, waa lita'amul tadabbur. isagoon akhriyeynba ayuu sidaa u eegayaa qur-aankii, macnihiisu u fiirsanayaa, qalbigiisu waxa weeyaan gelinayaa, suu iimaan iyo khushuuc iyo alla kacabsi iyo suu uga kororhsado. marka rasuulku calayhi salaatu wasalaam hadalkaas ku dhow isna waa yidhi, oo sida uu wariyey bayhaqi min xadiidi cabdillahi bn mascuud qad xasanahu sheikh اlalbani, rasuulku alayh الsalatu wasalaam wuxuu yihi man sarahu an yaclam anahu yuxib اllaha warasuulahu falyaqra' fi lmusxaf. qofka ay faraxti gelinayso inuu ogaado ilaah iyo rasuulkiisa inuu jecel yahay, musxafka ha akriyo, manaa ha eego oo hana akriyo. walihaada culimadu waxay idhahdaan qur-aanka in musxafka laga akriyo iyo in dusha laga akriyo waxaa fadli badan in musxafka laga akriyo. akrinta musxafka laga akrinaya waa laba arrimood oo wada socda. akrintii qur-aanku meesha waa ku jirtaa, eegmadii musxafkuna meesha waa ku jirtaa. haddii qofka isagoo ay u khushuuc badan tahay inuu dusha ka akriyo, taasi waa xaalad gooniya, lakin asalku waxa weeye qira'at lqur'aan min almusxaf afdal min qira'atihi cala dahri lgeyb. qur-aanka in musxafka laga akriyaa ka fadli badan in dusha waxa weeyaan laga akriyo. laakiin qofka qur-aanka eegay ee carabkiisa akrintiisa aan ku dhaqdhaqaajin wuxuu leeyahay fadligii nadarka, fadligii eegmada iyo fiirsashada qur-aanka laga helayay buu leeyahy. laakiin waxa uu sameeyey qiraa'o lama odhanayo, qof qur-aan akriyey ma noqonayo. qofka mujarad musxafkii saasuma eegay, isagoon carabkiisa iyo xubnihii akrintu ay dhaqaajinaysay aan dhaqdhaqaajin, qaari ma noqonayo, fadligii qiraa'adana ma helaayo. walihaada bay culimadu idhaahdaan qofka junubka culimada le ma akrin karo qur-aanka. qofka musxafka sidaa u eega ma noqonayo mid qur-aan akriyey. qofka junubki hadduu saa u eego qof qur-aan akriyey ma noqonayo. waxaa la mid a haddaad salaad tukanayso tusaalehaan ood musxaf ishor dhigto ood aayadihii saa u eegto, isha aad sidaa u mariso, adoon carabkaaga iyo dibnahaaga dhaqdhaqaajin oo akrintiisa aan ku dhaqdhaqaajin, qof qur-aan akriyey noqon maysid, oo faatixadii maad akrin oo salaadaasi ka ansixi mayso. marka fadliga akrinta qur-aanka laga dhaliyey shareecada ay u sheegtay waxaa helaya uun qofka carabkiisa ku dhaqdhaqaajiya ayuun baa helaya. rasuulku alayh الsalatu wasalaam wuxu uhi iqra'u lqur'aan fainahu yaأti ywma alqiyaamati shafiica liasxaabi. qur-aanka akriya, maalinka qiyaame dadka akrin jiray wuu shafeeco qaadaya. marka tanna qiraa'o lama yidha, eegistan qiraa'o lama idhahdo. waxaa kaloo rasuulku uhi alayh الsalatu slam man qara'a xarfa min alqur'aan falahu bihi xasana wاlxasanatu bicashri amhaaliha. xaraf qur-aan kamida qofka akriya hal ajar buu ku helaya, ajarkiina 10 baa loogu dhufanaya oo loo 10 laabaya. marka qofka qur-aanka musxafka ku qoran eega ee macnihiisa u fiirsada
fadligii eegmada iyo tadabburka ayuu leeyahay laakiin mar laha fadligii qiraa'ada xukum ahaana qof qur'aan akhriye noqon maayo wallahu aclam